محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد معاشر الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلن كيني اللحاد يعني كفاية يسنى إنه جوابها يعني كقاعدنا إنه فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر درير وكجا جوابه يويديمها يسوي دينه تدوينه waxaynu ku bilaabi doonaa sidii caadayna ahayd su'aalaha ku saabsan soonka maadaama bisha Ramadaan aynu ku jirno saailka ugu horeeya wuxuu leeyahay magacaygu waa Axmed Cabdirasaaq waxaan joogaa magaalada Burco wuxuu hooyo oo xanuunsanayso qaadata irbada macaanka irbadaasi wax ma yeelaysaa soonkeeda saailka labaad ama su'aasha labaad magacaygu waa Cabdiqaadir Xaaji oo jooga gobolka Gedo wuxuu anigoo sooman haddii aan niyoodo inaan wax cuno laakiin aanan ficilkii samayn oo aanan cuntadii cunin niyadda aan bedelay soonkaygii wax ma u dhimaysaa su'aasha saddexaad waxay tiri waa gabar Soomaaliyeed waxaan sheekha weydiin lahaa bay tiri dhiigga caadada ayaa aan si maaragtay si qaldan markaa u soo baxa ama waxa weeyaan aan xilligiisii ka soo hormara waqtiyada qaarna muddo kooban buu joogaa haddana uu tagaa haddana uu soo noqdaa marka dhiigga aan sugnayn maalin imanaya maalina maqnaanaya soonkii maxaanu kala yeelaynaa su'aasha afraad wuxuu magacaygu waa Maxamuud joogo waddanka Switzerland wuxuu waxaan ka shaqeeyaa shirkad soo saarta cabitaano kala duwan cabitaanka waxa ku jira wada khamriga marka shaqada aan ka shaqeynayo shirkadaas soonkaygii wax ma u dhimaysaa su'aasha ugu dambaysa su'aalaha ku saabsan soonka wuxuu saailka soo qoray xaakadu ama khaaqadu haddii aan liqo soonkaygii wax ma yeelaysaa sheekh maxamed الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد إربضا معانك وقفك قادنا أيه صومك ما تشبينيس هدي قفك أي وحياليس dhibaato ay ku keenaysana waanu iska afuraa waanu iska lifin qofku isagoo sooman hadduu go'aansado inuu wax iska cuno oo soomkiisiina jabiyo waxbaba yuu cuninbe wuu ka burayaa markaynu ka soo warramayna waxyaabaha soomka jabiya waxaynu ku darnay qadcu niya niyadii u soo taxnayd inuu jaro haddaad go'aamiso adoo salaada ku jira inaad ka baxayso ama soomkii inaad iska jabiso maalinkaasi inta hadhay waad soomanaanaysaa waad afxidhnaanaysaa waanaad soo qalaynaysaa uu kaa jabay arkaantii soomka mid ka mida baa la waayay oo ahayd niyada ruuxa dumarka ah dhiiggeedu googo'ayo maxay ka yeelaysaa soomkii dhiigga caadada ka googo'aya muddadaasi uu ka googo'aya 15 cisho gudahood hadday waxaa loo tixgelinayaa inay tahay caado mana soomayso mana salaadayso waayo dhiigga u badnaa wuxuu socon jiray xaydku ilaa 15 haddii 15 wax ka badan googo'iisu sii socdo way cibaadadii way bilaabaysaa ninkiina wuu la dhaqmi karayaa waana dhabar furan baa loo tixgelinayaa dhiigga isaga ah waana ka istijooto ay ka weysaysato marka muddadaasa la qiyaasaya laba madhab baa jiro madhabu saxbi iyo madhabu talfiiq marka madhabkaas aynu qaadanay in la iswada raacinayo inaad ka shaqayso meel khamriga soo saarta mushaharna ka qaadato waa xaaraan weeye qof xaaraan ku shaqaystana inaad adiguna wuxuu soo saaray wax ka qaadato toolkii uu isticmaalay in aad u noqoto waa xaraam qaala Allahu ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan baasha la yiraahdo xaakada haddii aanay afka u soo bixin oo xaggan hoose adigoo jooga inay kugu siibato waa la isla waafaqsan yahay soomka inaanay waxba jabinayn culimadu way isku raacsan haddii afka ay soo gaadho oo qofkii aanu tufin ee uu liqo
way isku khilaafeen culimadu in badan oo ka midii waxay leeyihiin baabkii candhuuftun bay noqonaysaa candhuuftiisa hadduu biiriyo qofku liqo tii un bay la mid tahay qaarna waxay leeyihiin wixii mar hadduu afkan soo gaadhay raashinkii buu la mid yahay inuu iska tufaabay ahayd calaa kulli xaal waxaynu qaadanaynaa insha allah inaanu waxba yeelayn wallahu aclam jasaa allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ka abaaliyo su-aalaha ku saabsan cibaadooyinka kale ee kala duwan axkaamtooda wuxuu leeyahay saa'ilka ugu horeeya magacaygu waa shacbaan axmed cismaan oo jooga dalka maraykanka waxaan ahay buu yihi darawal ka shaqeeya baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada waxaan maqlay buu yidhi haddii weyse qab aad ku gashato shirabaadada inay kuu bannaan tahay inaad masaxdo oo dhowr jeer oo kale aad masixi karto arrintaas sheekh maxaa ka jira su-aasha labaad wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray waxaa jirta bay tihi gabadh aanu guriga wada degannahay oo ismarisa dawooyinka jidhka caddeeya kadibna baca intay gashatay sidaa ku tukataa salaada lagu tukanayo dawada jidhka caddaysa salaaddii wax ma u dhimaysa su-aasha saddexaad waxay leedahay gabadha soo qorta magacaygu waa deeqa waxaan joogaa waddanka Germany waxay tidhi rabadaanada ka mida ayaan fidridii u wakiishay cid kale inay iga bixiso waxaan ogaaday inaan layga bixin oo ciddii aan u wakiishay aanay iga bixin maxaa ila gudboon inaan sameeyo lacagse ma lagu bixin karaa sakaatulfidrida su-aasha afraad waxay tihi waa deeqa oo joogta magaalada Hargeysa hooyaday oo aan xaji karaynin ayaan isla garanay bay tihi in laga xajo ma waxa fadli badan in cid qaraabada ka mid ah lacagta loo dhiibo ay ka xajaan mise dad kale inay ka xajaan baa fadli badan oo aan ban qaraabada ahayn su-aasha shanaad saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay hadduu maydho qofku weysadii ma ugu hoos jirtaa maydhiga mise markuu maydho haddana weyse kale ayaa laga rabaa falyatafadal sheekh maxamed xagga marka laga masaxaada iyo weysada nabiga waxa ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam isagoo khuf gashan inuu masixi jiray khufkaasi wuxuu ahaa maqaar ama harag yar oo khafiifa marka sharabaadkan kamay soo aroorin in la masaxo nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin culimadu waxay leeyihiin bahalkii jawrabka la odhan jiray iyo sharabaadada iyo hadday adag yihiin oonay biyaha sii daynaynin intooda khafiifkee la mariyo waxay la mid noqonayaan kaa uu nebigu masaxee la odhan jiray khufka hadday khafiif yihiin oo biyihii ay ka muusayaan ay dhaafayaanna lama masixi karo marka calaa kulli xaal sharabaadada aadka u adag ee suufka ah ama dunta xoogga badana waa la masixi karaa qofka musaafirkiina 3 maalmood iyo 3 habeen qofka gurigiisa joogaana habeen iyo maalin axkaam kalena wuu sii leeyahay almasxu cala alkufayna qofku waa inuu sii daalacdo su-aasha kale miye cibaadadii waxyeelaysaa weysadii iyo salaadii iyo dawadan la isku caddeeyaa ma jebinayso laakiin ajrigii bay yaraynaysaa qofkii kol hadduu caasi yahay oo wax xaaraana uu isticmaalayo ajrigii baa ka yaraanaya sakaatulfidri baan qof u dhiibaan ku idhi bixi muu bixinin maxaa yeelaa waad soo qallaynaysaa shay kastoo faral ah oo aan la gudanin waa laga daba tegayaa gashigu ma duugoobo haddaad sekadii aanad bixin sakaatulfidriga aanad bixin kafaara gudkii aanad bixinin iminkaad soo qallaynaysaa bixinaysa lacagna laguma bixin karaya raashin baa lagu bixinayaa su-aasha kale odhanaysa qofka haddii laga xajiyayo ma xigtadiisunbaa ka xajaysa mise qof kaloo ajnabiyana waa la diri karaayo lacag loo dhiibo labada arrimoodba way bannaan yihin qof xigtada ahina wuu ka xaji karaa qof kale oo la kiraysto oo lacag loo dhiibaana wuu ka soo xajiyi karaa waa ka cumraysanayaa maydhiga iyo weysada waxaa la jamcin karaa haddii aad ka maydhanayso jinaabadii iyo xaydkii iyo maydhigu hadduu yahay maydhi waajiba weysadiina way hoos gelaysa oo xadadkii weynaa kole dad ka maydhanayso oo ah wixii maydhiga keenaya jinaabadii iyo caadadii iyo xadadkii yaraana wuu hoos gelayaa weyse la-aantiya laakiin maydhigu hadduu yahay maydhi sunno ah ama qabowsi ah culimmadu waxay isla waafaqsan yihiin inaanad weysadii raacinaynin mar walbana waxa habboon siduu nebigu yeelay weysadana in la horreysiiyo maydhigana la dambeysiiyo wallahu aclam jasaa allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ka abaaliyo su-aalihii ku saabsanaa arrimaha bulshada oo in badanoo ka mid maanta ay ku saabsan yihiin arrimaha qoyska waxaynu ku bilaabi lahayn su-aal shalay ku saabsanayd bisha fasaxa
macallinku uu qaadanayo oo su'aalo badan ay ka dhasheen oo su'aasha ka dhalatay ay noqotay haddiiba sheekh iskuulkii uu isagu arrintan samaynayo macallinka baan ku saabsanayn maamulkii bisha fasaxa oo ardaydii leeyahay lacagtii soo qaada maxay xukunkeedu noqonaysaa su'aasha labaad gabadha soo qortay waxay tiri waxaa jira dumar sida bunuugta u shaqeeya oo intay alaab soo iibsadaan qofka dib uga siibiya ama qofkiiba alaab soo iibinayaan lacagta iyagaa diraya oo bixinaya qofkii kale alaabtii ku wareejinaya lacag siyaada ana way saarayaan arrintaa xukunkeedu muxuu yahay gabadha soo qortay weliba waxay tiraan iibka noocaas sax uma arko sheekhiga jaahil saar su'aasha saddexaad waxay tiri gabadha soo qortay ninkayga oo mukhadaraadka isticmaala ayaan arrintaa ka waaniyey wuxuu yidhi dib haddaan ugu noqdo waad iga furan tahay dabeetna dib buu ugu noqday arrintaa xukunkeedu muxuu yahay su-aasha ku xigta waxaan joogaa buu yidhi waa walaal jooga dalalka reer galbeedka dal ka mida waxaan sheekha weydiin lahaa buu yidhi maxay diintu ka qabtaa alkoholka ku jira cadarrada iyo dawooyinka lagu cadaydo saabuunaha kiriimada iyo wixii la mid ah su-aasha xigta ama su-aasha afraad wuxuu magacaygu waa cabdiraxmaan jooga hargeysa waxaan sheekha weydiin lahaa buu yidhi shaqaadlaha ninka qaadlaha ee qaadka iibiya ma la tacaamuli karnaa oo lacag inaanu ka sarrifanno dollar iyo laan aanu ku kala bedelanno arrintaas shareecadu ma noo ogoshahay gabadha su-aashan soo qorta waxay tii nin baanu ismehersannay muddo sanad iyo badh laga joogo imanuu hoysan masaariifna ima siiyo fasakh ma codsan karaa su-aasha ugu dambaysa gabadha soo qorta waxay tidhi ninkayga ayaa wuxuu igu yidhi bay tidhi uf nijaas baa tahay iga hor dhaqaaqo idhaaf ereyada noocaasa ma kaga furmayaa falyatafadal sheekh waynu soo erkoobkoobi doonaa mucallimiintu heshiiska waxay kula jiraan qofka maamulaha ah maamulihii haddii ay heshiis kula jiraan muddo leh waxay xaq ugu leeyihiin dee muddadaa isaga u xidhan yihin saynu shalay dariskii ka horreeyeyba soo sheegnay inuu mushaharkoodii bishii siiyey mar haddaanay meel kale u shaqo tegin maamulihiina warkooda waa inuu waalidka usii gudbiyaa oo idhaahdo macallimiintu way noo xidhan yihiin mushaharkoodii ma bixinaysaan mise waa sii kala daaya marka warku saasuu ku caddaanaya marka tii horun bay taagan tahay hadduu lacagtan maamuluhu qaadanayo fasaxaana dee waa xaaraan oo waxaanu lahayn buu qaadanaya hadday macallimiintii shaqaynayay leeyihiin iyo maamulkiina oo warku saa ku cad yahayna waa sax marka kol walba heshiiska waa in la caddeeyaa oo dadkan la kiraysanaya mucallimiinta oo heshiiskooda waa inuu cad yahay oo marka hore ilmo la dhiiba un arrinku aanu ahayna waa in foom laga buuxiyaa qofka waxa loogu shaqaynaya iyo wuxuu bixinayo dumarkan sida baananka u shaqeeya haddii ay wixii muraabaxa yihiin oo intay alaabtii soo iibsadaan oy la soo wareegaan ay dadka ka sii iibinayaan ay ka macaashayaan dee bakhaaradaa iyo bacadlayaashaasay la mid yihin waa qof alaab kuu soo iibiyey oo adigu aad ka sii iibsanayso kaa macaashaya qaladaadkunbaa laga ilaalinaya qaladaadka waxaa ka mida inaan heshiiskii la gelin alaabtii oo aan la soo iibinin iyo inaan alaabtii qofkii isagoon la wareegin aanu cid kale ka sii iibinin su-aashan kale odhanaysa ninku mukhadiraadku ninkaygu isticmaalaa oo uu ifuray ama uu igu dhaartay wuxuu hi haddaan dib u isticmaalo waad iga furanta maxaa yeelaa de waad ka furan tahay hadduu dib u isticmaalay mukhadiraadka iyo culimada u taga iyo maxkamadda si ama xal laydinku raadiyo isaguna de waa inuu ilaahay ka cabsadaayo xaaraanta uu iska daayaa haddii uu shardigaa ku xidhay oo uu yidhi haddaan dib u isticmaalo waad furantay oo uu isticmaalo way ka furantay qowlka culimadu u badan yihiin baalkan la yidhaahdo alcoholka ama cadarka ku jira culimadu waxay u badan yihiin inuu jaas yahay baalkan la yidhaahdo alcoholka ama waxwaaliya maadadan waxwaalinaysa inay nijaas tahay bay u badan yihiin culimadu xaaraanatay nijaasna tahay laakiin culimada qayb ka midii waxay leeyihiin daliil la cuskan karo oo ku cad oo xaaraantinimeynaya qur-aanka iyo sunnada midna kuma soo aroorin sidaa daraaddeed waa xaaraan isticmaalkiisu alcoholka in la cabo lagu sakhraamo laakiin nijaas maaha sida aayadda kuwa kale kula jira ee sanamka iyo qoryaha lagu faashada iyo iyaguba xaaraanay u yihin isticmaalkoodu laakiin dee aanay nijaas ahayn ila ilahi wuxu uhi innama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalazlaamu rijsun intaasuu ku cadfan yahay oo israacsan yihin marka qoryihii lagu faashanayay isticmaalkooda waa xaaraan weeye laakiin dee waa daahir marka masaladu waa khilaafkaasaa ku jira sidaa daraaddeed hadduu dee qofku
qowlkaa qabsadana wuu iska isticmaali karaa cadarka hadduu ka yareen alkoholka lahayn isticmaalana dhib ma laha qolo kalena waxay leeyihiin dee waxaa la eegayaa waxaa ku jira heerku leegyahay cadarrada qaarkood baa kuwa tayada wanaagsan waxaa ku jira uu noqon karaa waxaan waxba sakhraaminaynin marka taana waa dib baa loo eegi karaa qofka qaadka iibiya ma lala shaqaysan karaa maya qofku hadduu xaaraan iibiyo qaadka daroogada khamriga waxyaabaha lalama shaqaysan karo oo inaad isaga u adeegtaa dadka lacagta doolarka uga soo ururiso aad ka baacmushtaraysa halkiisa waa qalad sax maaha waayo xaaraan ka fogaanshaheed mooyaane qofka samaynaya in lala walaaqdo sax maahe waa dembi weeye marka waa laga fogaanayaa atacaamul maca man yatacaamal bilxaraam inaad la shaqaysato qof xaaraan ku shaqaysanaya su-aashan kale odhanaysa ninkii imana qabo imana furin biilna ima siiye ee ma isfasakhi karaa fasakhaadu dee qofku suuqa kama sameeyo qaadiga hortiisu ka sameeya ruuxa dumar hadday cabanayso waanay qaadiga hor tagtaa kiiskeeda geysaa markhaati loo dhegaystaa kadibna qaadigu go-aan gaadhaa marka haddii uu qaadigu ka fasakho oo u arko sababii lagu fasakhaya inay meesha yaallaan xaq bay u leedahay laakiin suuqa iyadoo maraysa waan fasakhday ma odhan karto waa la isku dilaya isagiina dhegtu qabsan doonaayo igama fasakhnid buu odhan doonaa waraaq iyo go-aan kala saaraana ma jiro wa isdilibuun waxna kuma kala soconayaan sida saxda ahina waxa weeye fasakhu inuu ka dhaco amaama alqadaa garsoorka hortiisa ninkaygii baa ufigu yidhi ma ka furanahay waa afxuma uun laakiin furiin ma jiro hadduu ufku yidhaa ama ku nacdalo ama reerkii nacaayo waa edabdarre iyo afxuma waajibay tahay inuu ka toobad keeno laakiin sidaa kuma furmaysid wallahu aclam الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان